soo dhowaada asxaabay. beri baa waxaa jiray tuulo lagu magacaabi jiray Rambuur. ardayda tuuladaas waxa ay aad u jeclaayeen waxbarashada. waxa ay subax waliba xil hore isku diyaarin jireen dugsigooda, weliba iyagoo aad u faraxsan. maanta maalmihii hore waa ay ka duwan tahay. waxa ay soo kaceen xilli dadku ay wada hurdaan. waxa ay soo aadeen dugsigoodii. waxa ay gelayeen imtixaan muhiim ah. kulligood waa ay ku faraxsanaayeen imtixaanka, maxaa yeelay waxa ay garanayeen cashiradooda. in badan oo ay soo soconayeen waxa ay arkeen haweeney duq ah oo gacanta ku haysata boor ay ku qoran tahay, maanta dugsiga ma tegi doontaan ee gurigiina ku laabta. ardaydu waa ay la yaabeen, balse iyagu ma ay doonayn inay maalin keliya ka baaqdaan dugsigooda oo ma ay rabin inay guryahooda ku laabtaan. laakiin naagtu waxa ay ku celcelinaysay, ardayahay ku laabta guryihiina. miyaydan arkayn waxa ku qoran boorka aan wato, mise indhaha ayaad istiraysaan? waa inaad guryihiina ku laabataan weliba hadda. maanta ma tegi doontaan dugsigiina. haddii aad diidaan inaad guryihiina ku laabataan, waxa aad la kulmi doontaan cawaaqib xumo amase dil aad la yaabtaan. ardaydii ayaa ku tidhi, maxaan ugu laabanaynaa guryaheena? maxaa dhacay bal noo sheeg. maxaad noogu diidan tahay inaan dugsigeenna tagno oo aan wax soo baranno? soo ma ogid inay waxbarashadu muhiim tahay? hooyadeen waxay nagu tidhi, waxbarta aan barwaaqo gaarne. adigu xaq uma lihid inaan dugsigeenna naga reebto amase aad naga hor istaagto. waa inaan tagnaa dugsigeenna weliba hadda. maanta waxa ay noo tahay maalin muhiim ah, maxaa yeelay waxaanu geli doonaa imtixaan. sidaa darteed waa inaad noo banaysaa wadada. haweeneydii ayaa u diiday oo waxa ay mar kale ku tiri, maya, ma tegi doontaan dugsigiina. anigu waxba igama gelin imtixaankiina. waa inaad ku laabataan guryihiina. hadalkayga maqla oo guryihiina ku laabta, haddii kale waxaad arki doontaan arrin aad la yaabtaan. ugu dambeyn haweeneydii waa ay ka tagtay, weliba iyadoo uga digaysa inay dugsigaas tagaan. balse ardaydu waa ay soo dhaqaaqeen oo waxa ay soo aadeen dugsigoodii. in badan oo ay soo soconayeen waxa ay soo gaareen dugsigoodii. waxa ayna galeen imtixaanadoodii. intii ay imtixaanka ku jireen iyo markii ay dhammeeyeenba waxa ay aad uga fikirayeen haweeneydii jidka taagnayd ee dugsiga u diiday. mid ka mid a ardaydii ayaa tidhi, waxaan u malaynayaa inay haweeneydaasi waalneed ee ha ka welwelina oo caadi iska dhiga. mana imaan doonto dugsigeenna oo maba taqaanaba. ardayad kale ayaa tidhi, anigu waa aan baqanayaa, maxaa yeelay haweeneydaasi waa ay noo hadjabtay. waxa ayna nagu tidhi, waan idin diri doonaa haddii aad dugsigaasi tagtaan ee guryihiina ku laabta. balse annagu waa aan soo aadnay dugsigeennii. soo lagama yaabo inay noogu timaado dugsiga. macalimadii ayaa hadalkooda maqashay. waxa ayna ku tidhi, taasi ma ahayn haweeney caadiya ee waxa ay ahayd naag sixiroolo ah oo aad u khatar badan. waxa ay aad u jeceshahay caruurta yaryar. waxa ay markasta caruurta u diidaa inay wax bartaan. waxa ayna ku tidhi, idhagaysta ardaydaydiiyey, hamarina jidkaas mar kale. naagtaasi waa ay ini dili doontaa haddii aad martaan jidkaas aad saaka soo marteen. haddii ay idiin yeertana ha u tegina oo ka carara. iyadu ma awoodo inay dugsiga timaado, balse hubaal waxa ay taagan tahay bannaanka ee hamarina wadadii aad saaka soo marteen. markii dugsiga lasoo fasaxay, ardaydu waxa ay go'aansadeen inay waddo kala maraan, balse wadadani guryahooda waa ay ka fog tahay oo in badan ayaa ay sii socon doonaan. waxaa la gelayaa habeen, weli waa
waa ay soconayaan. Waxa ay dareemayaan cabsi aad u daran. Guryahooda uma dhowa oo aad ayay uga fog yihiin. Waxa ay maqlayaan codad cabsi leh. Aad ayay u baqanayaan, balse waxa ay soo xasuusteen taladii macalimadooda oo dib umay eegin. Weli waa ay baqanayaan. Waxa ay dareemayaan cabsi aad u daran. Waa ay gariirayaan. Haddana waxa ay doonayeen inay guryahoodii tagaan. Balse maxaa dhici doona? Fadlan intan haddaad nala soo gaadhay nagu soo biir oo subscribe noo saar channelkeena lana soco qeybaha dambe ee muuqaalka. Mahadsanid.